kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka oo aad nooga barateen inaad ka daawataan bartaan aanu ku leenahay YouTube-ka qodobada aad daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan waxa kamid ah faahfaahin laga helayo qarax xalayto lala eegtay taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Banaadir Farxaan Qaroole iyo afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ka warbixiyay khasaaraha ka dhashay qaraxa xalayto lala eegtay taliye Farxaan Qaroole. Haddaba waa sidee xaaladda caafimaad ee taliye Farxaan Qaroole iyo Al-Shabaab oo war ka soo saartay qaraxa lala eegtay taliyaha. Gudoomiyaha golaha shacabka oo kulan degdeg la qaatay taliyaasha ciidamada ATMIS kuna amray sugidda amniga xarunta teendada Afisiyoni oo ay ka dhici doonto doorashada madaxweynaha Soomaaliya axadda nagu soo aadan ee toddobaadka dambe. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobana waxa uu amar degdeg ku soo rogay xildhibaanadii lagu soo doortay deegaanada Jubbaland kuwaasi oo farta ugu fiiqay musharaxa la rabo in ay xilka madaxtinimada u soo doortaan. qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan ayaa daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino. aynu ku horreynay daawadayaal warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax culus oo xalayto ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho kaasi oo mas'uuliyadiisa ay sheegatay kooxda Al-Shabaab. taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole ayaa la sheegay in qaraxaasi lala beegsaday waxaana ila wareedyo dhanka ammaanka ay sheegeen in uu badbaaday taliye Farxaan Qaroole. taliska ciidanka booliiska dawladda federaalka ayaana faahfaahin ka soo saaray saaka khasaaraha guud ee ka dhashay qaraxaasi xalayto uu ka badbaaday taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir General Farxaan Maxamuud Qaroole kaasi oo lagu eegtay duleedka magaalada Muqdisho. afayeenka ciidanka booliiska Cabdilfataax Aadan Xasan ayaa sheegay in qaraxaasi oo ahaa miino laamiga dhinaceeda lagu aasay ay qaraxday xilli taliye Farxaan uu socdaal ku mareeyay wadada isku xirto Muqdisho iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. afayeenka ayaa waxa uu tilmaamay in qaraxaasi uu geystay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad isugu jiro askar iyo shacab, waxaana uu xaqiijiyeen qaraxaasi uu ku dhintay hal qof oo shacab ah halka 8 qof oo kalena 3 kamid ah yihiin ciidanka booliiska dhaawacyo ay soo gaareen kuwaasi oo la geeyay isbitaallo. waxa uu intaasi ku daray afayeen Cabdilfataax in taliye Farxaan Qaroole uu iminka nabad qabo isla markaasina uu ka badbaaday qaraxaasi isagoo xusay in taliyaha xilligii la qarxinayay uu ka yimid kormeer shaqo oo uu ku aaday baro control oo ciidanka booliiska ay ku leeyihiin wadada isku xirto Muqdisho iyo degmada Afgooye. kooxda Al-Shabaab ayaana sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi waxaana ay shaaciyeen in uu ku burburay gaari ka tirsanaa kolonyada Farxaan Qaroole oo qaraxa uu haleelay, mana shaacinin kooxda khasaaraha rasmiga oo ay ogaadeen in uu geystay qaraxaasi iyaga ay ka dambeeyeen. dhinaca kale faahfaahin ayaa ka soo baxaysa qarax miinada nooca dhulka lagu aaso oo ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya lagula eegtay deegaanka Buurane oo ku yaala duleedka magaalada Jowhar ee caasimadda dawlad goboleedka Hirshabeelle. ciidamada qaraxa la beegsaday ayaa goobjoogayaal ay sheegeen inay wateen mooto, waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay. ciidamo kale oo ka tirsan kuwa dawladda kana agdhowaa halka uu qaraxa ka dhacay ayaa tegay goobta iyadoo halkaasi ay ka qaadeen askartii ku waxyeeloobay qaraxa. dadka ku nool deegaanka Buurane ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay inay wajahayaan cabsi amni darro kadib markii deegaanka ay ku soo bateen qaraxyada, waxaana ay ahayd markii toddobaadkii hore deegaankaasi lagu qarxiyay ciidamo ka tirsan kuwa howlgalka midowga Afrika ee ATMIS iyadoo halkaasi 10 askari looga dilay ciidamada Burundi ee ka tirsan howlgalka ATMIS.
gudoomiyaha baarlamanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray saraakiisha sare ee ciidamada howlgalka nabadilaalinta ee ATMIS. shirkan ayaa looga hadlay xaqiijinta amniga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo la filayo inay dhacdo maalinta Axadda oo ku beegan 15 May. Sheekh Aadan Madoobe ayaa faray saraakiisha iyo waliba taliyaasha ugu sareeyo ATMIS inay gutaan waajibaadkooda shaqo ee ah mas'uuliyadda ka saaran ilaalinta amniga doorashada madaxweynaha Soomaaliya. kulankan ayaa saraakiisha ka qayb galay waxa kamid ah ku-xigeenka ergeyga gaarka ee Midowga Afrika Marwo Fiona Lortan, taliyaha guud ee ciidanka ATMIS ee Soomaaliya General Ndegeya Demonde iyo waliba Brig General Keith Gatundi oo ah taliyaha guud ee qaybta sector 1 ee ciidanka ATMIS. shirkan degdega ee gudoomiye Aadan Madoobe uu ugu yeeray saraakiisha ATMIS ayaa ku soo beegmay saacado kadib markii guddiga doorashooyinka ay soo saareen habraaca amniga doorashada madaxweynaha oo la filayo in musharaxiinta madaxweynaha ay ku dhaqmaan. qaybihii dambe ee warkeena ayaanu soo gaarnay daawadayaal. iminkana madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa kulamo iyo shirar gooni ah waxa uu la qaatay xildhibaanada deegaan doorashadoodu ay tahay Jubbaland iyo qaybaha kale ee bulshada. Axmed Madoobe ayaa waxa ujeedada socdaalka uu ku joogo Muqdisho ay tahay mid la xiriirto doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyo in uu dhiso cidda uu ka dhax arko danta Jubbaland marka laga reebo madaxweyne Farmaajo oo colaad gaamurtay ay kala dhaxayso. sida la fahamsan yahay Axmed Madoobe ayaa xildhibaanada deegaan doorashadoodu tahay Kismaayo iyo Ceelwaaq waxa uu kala hadlay cidda ay tahay in codkooda ay ugu hiiliyaan iyagoo eegayo danta dalka iyo tan Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa xildhibaanada uu la kulmay waxa uu kala dardaarmay in aysan codkooda marnaba siinin madaxweyne Farmaajo oo khilaaf 5 sano jirsaday uu kala dhaxeeyo maamulka uu hogaaminayo. go'aanka baarlamanka uu ku sharciyeeyay xildhibaanada Ceelwaaq oo madaxweyne Farmaajo looga guuleystay ayuu Axmed Madoobe u arkaa mid dhabar jab ku ah Farmaajo maadaama maanta uusan hal xildhibaan ka haysanin mudanayaasha Kismaayo iyo Ceelwaaq lagu soo doortay. Farmaajo ayaa dhankiisa taageerayay sidii xildhibaanada Garbaharey lagu soo doortay ay u noqon lahaayeen kuwa ka qayb galo fadhiyada baarlamanka si uu ula xisaabtamo codadkooda xildhibaanada la diiday. ugu dambeyntii Axmed Madoobe ayaa la filayaa in uu ku sugnaado Muqdisho ilaa maalinta doorashada si uu u hubsado guul darrada Farmaajo, inkastoo aysan cadayn musharaxa guuleysan doono Farmaajo inuu soo laaban doono iyo in kalena cid hubto aysan jirin. inkastoo markii hore la fahamsanaa in Axmed Madoobe uu taageersan yahay Saciid Dani, haddana warar soo baxayo maalmihii dhawaa waxay sheegayaan in uu hadda si hoose u dhisayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Axmed Madoobe ayaa rumaysan inay aad u yar tahay rajada uu Saciid Dani ku noqon karo madaxweynaha Soomaaliya isagoo oo haysanin taageero ku filan. Saciid Cabdullaahi Dani ayaa haddii niyad jab weyn kala kulmay xildhibaanada laga soo doortay maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. Dani ayaa si gaar ah niyad xumo ogala kulmay xildhibaanadii isaga qudhiisa uu soo saartay ee deegaanada Puntland kuwaasi oo u cadeeyay in aysan doonin. guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu iminka idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.